rabitaanka ah inaad noqoto qof si zaa'id ah looga yaqaano baraha bulshada ama caan ah, wuxuu noqdaa mid ka xoog badan xitaa naxariista bini'aadanka. Dadka qaar waxay sameeyaan muuqaallo qosol leh, qaarna waxay soo gudbiyaan challenges halka qaarkood ay reaction bixiyaan si ay caan u noqdaan darteed. Laakiin qofka maanta shaashadda noo saaran wuxuu doortay waddo kale oo mugdi ah oo aadan weligaa ku fikirin inaad samayso si aad caan u noqoto darteed. Luka Magnotta wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo jecel inuu baraha bulshada caan ka noqdo. Wuxuu bilaabay inuu muuqaallo iska soo duubo, uuna soo geliyo baraha bulshada isagoo rajeynayay inay dadka soo dhoweeyaan oo ay daawadaan. Laakiin markii uu arkay inaysan cidna dan ka lahayn, wuxuu doortay inuu noqdo qof aan la ilaabi karin xitaa haddii uu noqdo dilaagii ugu naxdinta badnaa gudaha dalka Canada. Intaanan qisada gudaha u galin, marka hore aan baranno dilaagan taariikhdiisa.